السلام عليكم دمان أرض الصوماليات وتسلامنتهين ميل والبا الدنيا كجوكتان ومعلين داهي ديكشنري كنا صوت هذا 10 عصب 10 كان ما أنت وحن قادنا grammar وحن كبرنا basic voice وليبا وحن قادنا WH questions سيدا basic voice لو قدي لها سيدة basic voice سيدي أتقولي لهاد WH questions ما دام يرى أدكيهين maanta waxaan ka soo qaadanay who sidee baa u dhigi kartaa sideeda tense okay haddii who lagu qoro waxaa laga rabaa tense koowaad ilaa sideedaad in who haddaa ku aragto jumlada sidee baad ugu dhigi kartaa basic voice adigoo aan qalad sameyneynin waayahay arday taas waa fududahay qaacidadan aan ku siinayo qoro okay way ku anfacaysaa haddii jumlad who oo ka kooban ama who ka bilaabanaysa lagu qoro ha ahaato simple present ha ahaato present continuous simple past future waxaad sameynaysaa whoga ugu horeeya meeshaas waxaad ka dhigaysaa by whom okay by whom markii aad ka dhigto waxaad adeegsanaysaa tense koowaad haduu yahay is ama are mid ayaad soo qaadanaysaa kadib waxaad sameynaysaa objectiga ayaad keenaysaa kadib falka meesha ku jiray past participle ayaad ka dhigaysaa okay waayahay jumlada koowaad waxaa waaye who opens the door yaa albaabka furay waana simple present who opens the door yaa albaabka fura okay who opens the door yaa albaabka fura marka jumladan maadaama simple present ay tahay aan ku ogaaday verbka open who opens the door waxaan leeyahay by whom is the door opened by whom is the door opened yaa albaabka fura waayahay jumlada labaad waa present continuous waxaan leeyahay who is making this noise buuqan yaa sameynaya who is making this noise buuqan yaa sameynaya maadaama present continuous ay tahay waxaan leeyahay by whom is this noise being made by whom is this noise being made by whom is this noise being made yaa buuqan sameynaya okay jumlada saddexaad waa simple past who took my phone yaa teleefonkayga qaatay who took my phone yaa teleefonkayga qaatay maadaama jumladan ay past ay tahay waxaan leeyahay by whom was my phone taken by whom was my phone taken by whom was my phone taken yaa buugayga qaatay jumlada afraad waa past continuous waxaan leeyahay who was looking for you yaa ku raadinayay who was looking for you yaa ku raadinayay maadaama past continuous ay tahay waxaan leeyahay by whom were you being looked at by whom were you being looked at by whom were you being looked at yaa ku raadinayay jumlada shanaad waxaa waaye simple future tense who will win the competition tartanka yaa ku guuleysan doona who will win the competition tartanka yaa ku guuleysan doona maadaama future ay tahay jumladan waxaan leeyahay by whom will the competition be won by whom will the competition be won by whom will the competition be won okay won hadin array waa jumlada lixaad waxa waaye waa present perfect tense waxaan leeyahay who has seen the keys yaa arkay furayaasha who has seen the keys yaa arkay furayaasha maadaama present perfect ay tahay waxaan leeyahay by whom have the keys been seen by whom have the keys been seen by whom have the keys been seen all right jumlada toddobaad waa past perfect tense waxaan leeyahay who had married asli yaa guursaday who had married asli yaa guursaday waxaan leeyahay marka past voice ahaan by whom had asli been married by whom had Asli
been married yaa guursaday Ashley. Jumlada sideedaad oo ah past future perfect tense waxaan leeyahay who will have completed the work. Shaqada yaa dhammaystiri doona. Who will have completed the work. Shaqada yaa dhammaystiri doona. Passive voice waxaan ka dhigayaa marka by whom will the work have been completed. By whom will the work have been completed. By whom will the work have been completed. Marka arday isku day inaad jumlad qorato ka dhig inaad tensi koowaad oo who ka bilaabanaya sidaas ugu shaqaynaysaa tensi koowaad kan labaad kan saddexaad kan afraad kan shanaad. Marka arday waxaan filayaa in laga bilaabo maanta who aad u bedeli doontid sideeta tense. Marka until next time wixii su'aala waa i weydiin kartaa hoos. Until next time, me and the rest of my team. Assalamu alaikum. As always.